بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله سوماليد ميلا جوجتان بإلهي سبحانه وتعالى دي كوان ما يلو عدي لبنبك الله كقادو عدي دن الله وفي انت بهن الله ديقو انت بوكتا الله بوكسيو انتي دمتي الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستان نغانا الله نوغدو ونحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob. qodobka koowaad, madaxweynihii Soomaaliya ayaa wuxuu ka qayb galay xaflad aan cidina uga horeyn. kelmadan ka oranaya. qodobka labaad, wasiirka arrimaha dibadda iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya labada aqal asal ahaanna ka soo jeeda ama qabiil ahaan waqooyiga oo hadal islaafsadayna kelmadan ka oranaya. waa qodobka koowaade, madaxweynihii wuxuu noqday taariikhda markii ugu horeysay oo madaxweyne Soomaaliyeed uu ka qayb galo birthday party ama waxa la yiraahdo maalin xaflad dhalasho oo uu dhashay nin gaal ah oo aan Soomaali ahayn, Soomaalidana wax wanaaga aan aysan ka dhaxayn, oo ah ninkii ina gumaystay oo cadowga ahaa oo Ingiriiska. taariikh hor leh wey. waa another low, meel ka hooseysa oo uu xasan gaari lahaa ma jirto. markaan idin leeyahay xasan hadduu ajnabi arko bawdihu isla dhacaa. waa markaasoo kale inta loo yeertay baa weliba mindidii loo dhiibay sida isagu inuu yahay magaranaysaa qofkii magaranaysaa dhashay oo kale. madaxweyne Soomaaliyeed oo taariikhda foosha xun ay horay uga dhacday oo aan isaga ahayn ma jiro. ilaahay waxaan ka rajeynayaa mid ka dambeeyana inaysan ka dhicin. waa ceeb iyo fadeexad iyo wax aan la malaysan karin wey. waxaa ka daran Soomaaliya Commonwealth-ka kuma jirto. wadamada u dabaaldega boqorada Ingiriiska Commonwealth baa la yiraahdaa oo iyaga hoostaga. Soomaaliya ka mid maaha. wanaag looma hayo. maalin walba Ingiriisku wuxuu ku mashquulsan yahay kala qaybinta Soomaaliya. wuxuu ka shaqeeyaa baarlamaankoodu maalin walba wuxuu waxa ka soo baxaa hadallo xildhibaan kamid ah iyo mid aan kamid ahayn iyo mid hore ugu jiray iyo oo Soomaaliya in la kala googooyo shaqadiisu tahay. awalna isaga kala gooyay. DDS ama dawlad deegaanka Soomaalida ninka raaciyay Ethiopia waa isaga. ninka Kenya siiyay NFD waa isaga. hadeerna intii hartay buu rabaa in la kala jaro. madaxweynaheeniina intuu xalana tagay, hadda waa xalane, buu ka dabaaldegay oo xafladii keegii jaray. ceeb intaa ka weyn ma jirto. madaxweynuhu diinta ma xurmeeyo, dhaqanka ma xurmeeyo, akhlaaqda ma xurmeeyo, Soomaalinimada ma xurmeeyo. qab haba yaraatee male. wax yar oo aan macno lahayn baa rida. waxaa kaaga daran wixii uu meesha u tagay ujeedada uu ka lahaa, sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa run ah oo uu ku soo fashilmay. wuxuu u tagay oo sidaa dhulka isula dhacayaa oo isu ceebeynaya, isu bahdelayaa, bal in ay u hiiliyaan doorashada beenta ah oo ila meeraysada oo isagu uu wato inay ku taageeraan. jawaabtu ka soo helayna waxay noqotay wadar ogol baanu rabnaa waqtigeedii ku dhacda. marka durwaagii warka laga sheegi jiray yacni intuu wax doontay isagii laga takhalusay oo kaluu noqday madaxweynihii. ma ujeedaa? saasuu noqday. yacni waa ceeb qofku hadduu isagu qiimaha iska qaadayo sharafka cidina ma sharafto. ashariifu man sharafa nafsa. yacni shariifku qofka ahi oo qiimaha lihi waa qofka isagu is-sharfa. madaxweynaheenu wuxuu caan ku yahay inuu lacag un raadinayo. waxa uu lacag ka dayay qaxootigii Soomaaliyeedoo tahriibtaa ogeedii hoogiyo ba'a maray oo Yurub tegey, inuu inta ka daba tago Jarmalka yiraahdo iisoo ururiya oo xoogaa yaroo lacag ku qaato. madaxweynuhu waa ninkii qabuuraha qotay, waa ninkii dhulkii dawladdu lahayd oo dhan iibsaday, waa ninka wadamo ajnabiga inta tagay yiri dhul isiiya. meel uu socdo iyo wuxuu raadinayo iyo meesha bannaan uu buuxinayo baan anu garan lahay. insaanku sidiisaba ma dhergo. xasanna waxbuuba dheeriya, baruuba dheeriya. kelmadda intaas ka oranaya waa ceeb, waa fadeexad, waa waxaan la arag oo la maqal. kuwa tagay oo dhan oo siyaasiyiinta ahna shame on you, all of you.
shame on you kuwa isku soo sawiraya arkayo sawir soo galayo sawir soo yani saaso kale u qaba wax fiican inay ka qayb galeen xafladii adeerkood iyo aabahood inay ka qayb galeen war maxaa idinka khosay boqorka Ingiriiska qofkii Ingiriis aad dacwo kama qabo qofkii hatta Commonwealth dawladaha baasaboorradooda haysta dacwo kama qabo maxaa idin geeyay intiina kale maxaa ka doonteen ceeb bay idinku tahay fadeexad bay idinku tahay shame on you qodobka intaasaan ka waranayo qodobka labaad wasiirka arrimaha dibadda iyo waxa isu jawaabay xildhibaano ka socda aqalka sare iyo aqalka hoose ee Soomaaliya gobol ahaan ka soo jeeda waqooyi waxa la yaab kale waxa weeye xildhibaanada xamar jooga ma qarsadaan inay gooni goosa taageersan yihiin qaar ka mid waxa ka mid ah wasiirka maaliyadda oo soo geliyay sawir uu la sawiran yahay ninkii la karbaashay oo Denmark ambassadorkeeda ahaa saad ogtihiin dowladnimadu waa dhaqan iyo xeerar la raaco diplomatic normska kuma jirto safiir intuu tago inuu meel arrimo gudaha dalka uu ka qayb galo maba loo ogolaba haddaan wasaaradda arrimaha dibaddu siin ogolaansho ma tegi karo sidaas darteed buu markii fiqi uu warqadda u qoray ay khasab ku noqotay inuu apology bixiyo otherwise waxaa ku xigta PNG persona non grata Soomaaliyana waa ay taqaan sida loo tuuro warqadaas waa yaqaaniin marka iyagii oo apology bixinaya buu cige wuxuu soo geliyay bixi cige wuxuu soo geliyay isaga iyo safiirkaas oo isla sawiran oo wuxuu yiri waxaan uga mahadcelinayaa deyn afiska oo aan kala hadlay wuxuu ka dhigay wax hadda dhacay bishii saddexaad iyo bishii labaad sanadkan bilowgiisii sawirro ay wada galeen wey wuxuu dan leeyahay inuu wasiirka arrimaha dibadda ku xumeeyo kana ku taageero halkaasay ka maraysaa war dawladdaadii adigu aad dawladda u ahayd oo wasiirkeedii maaliyadda aad tahay baad adigu fadeexaynaysaa wasiirku magac uu ku hadlayo fiqi ahaan hadduu fiqi yahay keligiis macna ma leh laakiin fiqi waa wasiirka arrimaha dibadda adigu wasiirkaagii yahay arrimaha dibadda waa muraayadda ummaddu ay ina ka qiimeynayso baad ka daba shaqaynaysaa oo ka daba hadlaysaa kuwa intay mikrofoonka soo qaateen meelaha ka hadlay waxa iigu daray ninka wasiirka ah oo golaha wasiirada ku jira oo wasiirka arrimaha dibadda shaqadiisii ku haysta waa dhaqan xumo dawladduna inay arrintaas ay saa u dhaqanto waxay ku tusaysaa xasan inuusan maamul waxba ka aqoon rabinna xamsana iska badaa warkiisa marka xasan war wasiiradaadu wadda saxa oo mid ah qabsadeen kii khaldamo wadada ka leexdana wadada ku soo celi hadaad inta awoodi karin wasiiradaada aadan xukumi karin xakamayna karin baarlamaanka nimankii kugu jirayna aadan la xisaabtami karin mushahar maxaa loo siinayaa nin gooni goosada aaminsan muxuu muqdisho ka hayaa hada meesha uu rabo inuu u goosto muxuu muqdisho ka dhex samaynaya maxaa mushahar loo siinaya sababta loo ilaalinaya maxay tahay waxa ilaalinaya mushaharka siiya reerkiisa biila calanka buluuga oo ah Soomaaliya mida hadduusan rabin dee iska tago in la eriyo wey intaasaan oranayaa wabillahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatu